maanta newska ka soo baxay magaalada Minneapolis oo ICE ay la yiri way baxaysaa maalmahan soo socda ay ka tagi doontaa operationkeedina way dhamaysay. waxaan rabaa waxyaalo yar inaan ka hadlo aan community-gana u sheego. marka horeeto waa inaan realize garaynaa dhibka aan soo marnay iyo dhibaatada ay u geysteen ICE magaaladeena iyo shacabkeena. haddaan Soomaali nahay dadkii lagu bilaabay ay ahayn dagaalka oo la yiri Soomaalidu waa garbage, Soomaalida hal maxaa la dhahaa hadhowna right away uu noo soo diray over 3000 ICE agencies oo xaafadihii dhan ay soo galeen, laakiin way ku fashilmeen. saa ula socotiin Soomaalida badankeeda waa citizenship, laakiin dad badan oo way jiraan ay haraas gareeyeen oo baasaboor ay weydiiyeen, qaar dhulka ay ku jiideen, iyo dhammaan dad xataa asylum raadinayay oo dhib badan ay u soo gaarsiisteen. marka walaalayaal waxaan rabaa inaan ii sheego ICE-ka magaalada dhib weyn ay u gaarsiistay. dadka ayaa streetka lagu dilay, baaruud iyo dhib iyo dhac iyo wax walbeeto ayay ummadda u keeneen. marka hadda strategigooda way bedeleen, waa inaan wada fahnaa. micnaheeda maaha ICE inay ka tegayso magaalada, ICE way joogaysaa. hadda DL ayay la galeen county-yaasha iyo state-ka iyo jeelalka iyo prison-ka in magacyada lagu soo gudbiyo sidaas. kolay ilaa haddeertaan qof ku dhahaya mataqaana anagu DL baan la galnay ma jirto, laakiin reality-gu way cadda. isagaana noo sheegay sida meelaha jeelka inay access u leeyihiin, maxaa la dhahaa meel walbeeto inay access u leeyihiin. DL baan la galnay ku dhahayaan si ay warka nagu soo fidinayaan. marka waanan aragnay ninkan suu u yimid Tom Holmes la dhaho, xaaladda xoogaa inay degtay. ma aha ICE inay tagtay, ICE way joogaan 3 kunba, laakiin strategy-gay bedesheen. hadda government center-ka oo iga hooseeya halkan ku yaala dad dharcad oo caadi ah oo shacab ah oo ICE jira oo dadka qabanaya. videoga ka arkaya halkan hoose ku qabteen. marka strategy-gooda bedeleen. awal waxay ahayd meesha inay buuq la tagaan, dhib ka kiciyaan. hadda strategy-gay bedeleen si waxay u shaqaynayaan reer magaalnimo ah. marka waxaan rabaa inaad arrintaa la socotiin. ICE completely kama dhamaanayso magaalada, badankooda way tagayaan laakiin way joogayaan. laakiin waxaan kaloo aan maqlayo soo wacayay wiilal badan oo asylum raadinaya ama dad badan oo asylum raadinaya oo waxaa jirta hal maalin loo soo dejiyey inay leeyihiin hearing-koodii right away oo Zoom lagu gelayo, laakiin la yiri federaalka imaada, bilinka federaalka oo hal saac gudahood baa 170 qof waxaa la yiri lagu soo dejiyey. marka waxyaalaha challenge-ga isweydiinta leh waxaa waaye war dadkan mission-kooda muxuu yahay? mission-kooda wuxuu yahay basically dadkaas inay xirxiraan, dadka inay qabtaan, wax due process-na aysan u suubinin. marka anigu lawyer ma ahi, laakiin ummadda waxaan u sheegayaa in ay ICE hal mission u joogto meesha. dadka qaxootiga ah ama asylum sugiya ama sharciga lahayn in ay mashaariic furiso dibna u keento.